wada dhaqaaqiyo dhuuxiyo lafaaso jacayligu ma dhiiran dhiibtaana wada qabo soo dhaawac haliso dhanka bidix ku yaalo haygu dhigi maaha dhanka bidix ku yaalo haygu dhigi maaha alla dheerida ay dhulka maad ku noolayd ma dhadhaaba culusba ina kala dhexyalo siman maxaa dhacay dee maxaa samee xabiib noo wad heesta maxaad noogu badhgoyn oo kaale macajilaa shatay mooday heesaha mijiiska laga shidi jiray adaa ka cod macaanba wallaahi mahadsanid xabiib adaa mudan xame hees kale ku sii daa ayaaba helaba hees macaano bilaa miisiga cod macaan waa fankii xalaashay kani wadnahayo waxyahayga kii warabinaya dhiigo majaadka saaxiibkaya weynowhay nakala wadine waa qad laba isjeclo dhibanku warto aniswa inaga yeelaniswa inaga yeel waayo siduu albaabka u gargaraacaan ka gartay waa kii muscabkii orodooda ka fur jaad kugu soo ordaya kulley gabadha ciidanka ka furaysa السلام عليكم دماشي وعليكم السلام دماشي في أنت ما الحمد لله سلام ورا السلام عليكم maxaa salaanta igu gujin san naxariis salaad iyadoo salaanta ma salaanta والولي جنب سونيك ساس كسلام يجرني warnaga aan weligaa saa imaad salaamini camalku si adiga ma waa jaad kare lagu qaaday iska fadhiis anaa ku garanay دماشي جاتكم كوكو فيليهاي ها دماشي الله يخليك الله يخليك الله يخليك horta maxaa la kala hadashaa marka jaad lagu dhiibo war isla xisho martii ixtiraam taqaani inuu gurigaagu joogay دماشي iska daa anani kas fahmay marka wada qanina jaadka haye si fiican u barjaa oo iskaga marqaam hay hay marxaba marxaba haye horta ii sheega waqti telag ba marqaan heer sare ku gaadhin ويدا maxaa u galay maanta barqaankayga hawniga ku maqlay dumaasho waa maxaanta life ka الله دماشي ما دي مغليسي laakiin xan ma hadda way bay joogtaa oo maqlaysa haye waa goorma marqaankiinu iminkaan bilownay maaha horta waan isxaal wareysanaynaa mashaariicdii aan ku sheegay ayaan iska wareysanaynaa halkeen ka bilowno halkaan ka bilowno waxba inaan hadalka ugu daalinay saacad ama saacad iyo badh kadib nagu soo noqo haye okay wax kale oo baahantiin ninkan ma jirtaa may dumaasho way ka dhantahay warda aan ku warramo labadii nin ee 7 sano asxaabta ahaa waxay isku laayeen sheekadii la oran jiray maad garanaysaa heblaaya waxaan tiray heblaayadii kale waxaan tiray ay dumarku isku leen jireen ayaa imka noqotay hebel baa waxaan yiri hebel kale waxaan yiri war deebay maqlaysid be chaatkaas kuma ruush kana kale wiliga mad cunin ma marqaan hay imka inoo soo noqonay bilaay kugu dhigay haye way gaadhi maxaa gaaray wajaad laga ku fiisan hala kaco halkee loo kacaya telefoonka soo qaadanaya si daaray haye halkee loo kacaya de nacay la hadal halkee la isku diyaarinaya wajaad laga ku fiisan halkee jaad ku tuftay ila hadal de nimcan bacdo qaado jaadka tuf ya ma walan tahay waxa lagu marqaan ku macaanaa war waxa laga rabtay bacdo qaado jaadka tuf wad ku cishaniye wallahi ma tufay wallahi ma tufay war ma adaa jaad kala markii hore iyada ku qaadima taqsiinta yar tuf wad ku cishana daa doontidi nimcan dhageyso han tufu aan ku cishada daaman doonay ishak sababta loo kacayo tiktok man duubayna waa 10 sanadba wuxuba waan kala tuurnaa soo noqonayba dad doonaysa de mirqaanka inoo soo noqotay maana ana gaangeeru doofaar ku laay ma guudkaad ku dhacday yaad ku xaniban tahay yaa doonaysa inaad igu ridid saan kula xanibnaado de walaalka baan hayma intaasoo sana ana saxaab aan nahay oo ciish oo milix afka wax ku kala goosana inta haddaan idii qabanaynin halka igula xanibnaani maxaad ii tari